waxaynu u baahannahay tacab inaynu la nimaadno waxaynu u baahannahay inaynu nabadgelyada wada ilaashano waxaynu u baahannahay inaynu isku duubnida ilaalino waxaynu u baahannahay inaynu dimuqraadiyadda ilaashano waxaynu u baahannahay inaynu mid wada jirka ilaalino aynu qabyaaladda iyo ardaayada dadka loo kala fadhiisinayo aynu ka dayno xisbiga kulmiye oo ah xisbiga ugu weyn ee maantana talada dalka ka haya xukunka haya xisbigii uu aasaasay ee uu hormoodka ka yahay oo uu hogaamiyaha maantana ka yahay madaxweynaheena Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo waxa dhow oo uu dhawaan qabsanayaa shirkiisa golaha dhexe ee qabsoomi doona ayaanu doonaynaa in aan yar iftiimin ka bixino iftiiminta aanu ka bixinaynaana ay noqoto saamaynta uu dalka ku yeelanayo saamaynta uu xisbiga ku yeelanayo shirkaasi iyo waxa looga baahan yahay in la fahmo in shirkaasi shaqada lagu qaban doono marka ugu horeysa madaxweyneynu leenahay madaxweynaheenu waa Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo maantana dalka isaga jooga inta aynu ognahayna musharaxeenu waa isaga musharaxeenu waa madaxweynaheena Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo marka la gaaro shirkaasi maadaama uu Axmed Siiraanyo yahay hogaamiye tiir adag u ahaa dimuqraadiyadda dalka ka dhaqangelaysa waxaa dareentaan inay marar badan dimuqraadiyadda iyo tartankaas iyo dhaqankeenna oo aan u baranini xaraf yar isku reebaan ama ay yimaadaan isxagxagasho yar isku dhacdhac keeni kara ereyo iyo dhawaaqyo iyo dhaqdhaqaaqyo aan marmar ina farxad gelinin waxaanu doonaynaa inaanu ka digno madaxweynuhu ogol yahay in golaha dhexe ee la imanayo sidii caadiga ahayd tartanka muwaadiniinta xisbigaasi ka mid ahi ay ku tartami karaan iyaga oo xor ah iyagoo xaqa ay leeyihiin ay ka mid tahay dastuuriga iyo xaqa xeerka xisbiguba siinayo inuu muwaadin waliba iska sharaxi karo oo uu isu sharaxi karo hankiisu halkuu marba ku siman yahay oo aan loo fahmin shaqo qof doonanayo oo aan loo fahmin xil qabiil helayo ama qabiil ku faa'iideeyo ama qabiil ku khasaarayo sidaa maaha waa xil aynu wada leenahay waa xil qaranku wada leeyahay waa xil la doonayo inay ummaddu oo dhammi wada dareento inay wada leedahay waana mas-uuliyad culus ilaahayna haynagu asturo shirka golaha dhexe ummaddana waxaanu leenahay qarankeenna ilaahay guulaha ugu simo xisbiyada kalena way leeyihiin tartankaas sidaas la mid ah inay dariiqa qaadaan oo aanu inaga leexanin hanaanka dimuqraadiyadeed ee aynu jeexanay inaanu inaga leexanin baynu u baahanay